Horumarka iyo guushu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan uguna muhiimsan ee uu hanqaltaagayo aadamuhu. Inaad noqotid qof horumar ka sameeya noloshiisa, ku tiirsan naftiisa, gacan qabta dadka ku hareeraysan, sidoo kale wax ku soo kordhiya bulshadiisa. Waa riyada aynu ka wada simannahay dhammaanteen halganka iyo loolankan aan ugu jirno. Laakiin nasiib darro, boqolkiiba 10 keliya aadamaha ayaa ka gaara nolosha horumarka ay ku taamayaan, halka inta soo hartay ay ku fashilmaan halganka nolosha. Haddaba maxaa dib u celiya? Maxay tahay sababta fashilka noloshu? Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa daawadayaal 10 wax oo sabab u noqda fashilka iyo dib u dhaca nolosha. Inaad dayacdo salaada iyo guud ahaanba cibaadada Alle maalin kasta 5 waqti. Waxaa maqalnaa u kaalaya guusha. Haddii aadan ka jawaabin isla markii 5 salaadood waqtigooda aadan tukan, ma jiro waqti kale oo aad maarayn karto. Markastana waxaad ahaanaysaa qof mashquula, haddana aanay waxba u qabsoomin. Jooji inaad naftaada been u sheegto, khiyaalina aad ku maaweeliso. Nolosheennu waxay horumartaa keliya markaan fursadaha ka faa'iidaysano. Fursadda ugu horeysa uguna daran ee aan qaadan karno waa inaan nafteena daacad u noqono, mar walba aan u sheegno hadallo ka fog riyo iyo mala awaal. Jooji inaad waqti ku lumiso asxaab xun. Noloshu way ka gaaban tahay inaad waqti ku lumiso dad farxadda kaa qaada, noloshaadana aan waxba ku soo kordhin. Kala garo nooca saaxiibada aad leedahay. Saaxiibka xun kaliya gadaal buu kuu dhigaa, halka kan fiican uu sabab u noqdo Ilaahay ka sokow guushaada, kuguna dhiirigeliyo qaadida tubta toosan. Inaad ka cararto ama aad ka gabato dhibaatada waxay ka mid tahay waxyaabaha soo dedejiya guuldarrada. Wajah dhibaatada ilaa aad ka xallinayso. Maaha wax sahlan, mana jiro qof adduunka dhib la'aan ah xaqiiqdii. Waxaana soo maray murugo, kadeed, kufid iyo dhaawac. Nolosha ayaa sidaa ah, waxaa la rabaa in la wajaho, laga foojignaado, lana xalliyo. Tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto. Jooji inaad ceebaha dadka kale raadiso, kadibna aad samayso cabaarayn, cay iyo cilad sheegid joogto ah. Xaqiiqdii tani waxay kaa hor istaagaysaa inaad dantaada mashquul ku noqoto, horumarna aad samayso. Xaasidnimadu waa inaad xisaabiso waxyaabo qof kale Alla ku manaystay, aadna uga xumaato intii aad adigu taada xisaabin lahayd. Ka fogow xaasidnimada, kana dheerow eegidda dadka kale, kana dhigo naftaada mashquulkaaga koobaad. Waa hubaal inaadan waqti u helin eegidda dadka kale. Jooji caajiska iyo inaad iska fadhido nafta oo aad siiso firaaqo badan oo ay isaga fadhido, ku fikirto ama hawl ku taagan aad ka wahsato waxay horseedaa burbur iyo fasahaad. Ku mashquuli naftaada shaqo, wax akhris iyo samaynta wax faa'iido ku leh. Jooji inaad ka cabsato inaad khalad samayso. Inaad wax samayso oo aad khalado waxay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba samayn. Guul kasta waxay leedahay fashil badan. Fashil walbana waxaa hubaala inuu ku gaarsiinayo guushii aad rabtay ugu dambayn. Jooji isku dayga inaad farxad iibsato ama dad kale aad ka raadiso haddii aadan ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo wax aad haysato. Ma jiro cid kale oo farxad ku siin karta iyo waxyaabo qaali ah oo farxad kuu keeni kara. Waa inaad deganaan iyo qanacsanaan u abuurto naftaada. Waxaa hubaala inaad markaa kadib adigu aad siin kartid dadka kale farxad. Jooji inaad ku noolaato xasuusta wixii aad soo martay. Wixii hore u dhacay waa taariikh, weligood ma soo noqonayaan. Walwalka iyo xasuustoodu waxay kaa qaadayaan farxadda maanta. Ilow wixii hore, dibna u bilow nolol cusub oo ay u tahay guushu saldhig, shaqaduna derbi ay u tahay. Waa hubaal inaad daayahaaga ku arki doontid isbeddel aadan rumaysan karin. Ugu dambayn, ogow daawade in wadada guushu ay tahay wado aad u dheer, u baahan dhabar adeeg iyo dulqaad. Qodxaha wadadaas yaalana aad ku dhaafi kartid qorshe iyo yool cad oo keliya.